madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay garbihiisa joogaan gudoomiyaha golaha baarlamaanka ee Soomaaliya iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa qalinka ku duugay dastuurka dalka oo ay cutubyadiisa ugu waaweynaa meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka. haddaba nuxurka warbixintan waxaan ku eegaynaa 4 qodob oo ku jira gudaha dastuurka, waqtiga xilka ay sii haynayaan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, xilka madaxweynaha. haddaba waxaan soo kala dul istaagi doonaa Xasan Sheekh Maxamuud hal sano oo dheeraad ah miyuu ku darsaday oo uu dastuurka ku qoran yahay waqtigan in uu xilka sii hayn doono. soo dhawow muuqaalkaasi gudbi leegare sheergare oo la sii wadaag asxaabta. sidoo kale adiga ayaa ka harsan in aad ku soo biirto boggeena oo follow soo dheh. falanqaynta warkeena farta ruux kuma fiiqno fal xumaan dharinaayo wiligeynba ma faafin fikradii shacabkeenaan faaqidaad ku qornaa sheekadii filowaa iyo musiqiina fidneeyaan feejignaan bulshadeena taladii ugu fiican ku siinaa fursadooda iyana wayna fahmaano furitaanka su'aasha jawaabtaan ka filaynay fariid bay u baxshaano alla firfircoona rukunkeena. xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay meel mariyeen dhawaan cutubyo xasaasi ah oo doodi adag ay ka taagneed, taas oo ku saabsan arrimaha meelmarinta dastuurka oo xubno kasta oo isu soo sharaxay qabashada xilka madaxweynaha dalka ay dul istaageen in dastuurka ay dhameystiri doonaan, doorasho qof iyo cod ah ay ka qaban doonaan dalka, isla markaana amniga ay gaarsiin doonaan meel hagaagsan. laakiin waqtiga doorashadu ay soo dhawaatay waxaa aad madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud loogu dhaleeceynayay in uu gacmaha la galay dastuurka dalka iyo qaar ka mid ah qodobada ku qoran oo isbedel lagu sameeyay. haddaba nuxurka wuxuu yahay in ugu dambeyntii dood iyo sidoo kale is hor istaag dastuurka ku saabsan kadib xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya 3 maalin ka hor ay meel mariyeen loona codeeyay oo gacantii u taageen 222 xildhibaan kuwaas oo sheegay in ay aysan yihiin meel marinta cutubyada ugu waaweyn dastuurka dalka. maanta waxaa arinta soo gabagabeeyay Xasan Sheekh Maxamuud oo qalinka ku duugay sheegayna in wixii xilligan ka dambeeya uu ku saxiixan yahay madaxweynaha dalka oo dastuurka uu yahay dastuur rasmi ah oo shacabka Soomaaliyeed lagu hagi doono. haddaba qodobada ku jira ee 4 ah oo ay xildhibaanada golaha shacabka meel mariyeen, siyaasiyiinta qaar ee isku magacaabay inay yihiin mucaaradkana ay diidan yihiin maxaa ka mid ah. waxaa ka mid ah in xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay ku yimaadaan doorasho dadweynaha halka markii hore ay soo qoran jireen dhinacyada kala duwan ee xubnaha maamulada ka jira dalka, gaar ahaan goboltoorayaasha magaalooyinka dalka Soomaaliya sida Koonfur Galbeed, Jubbaland, Puntland, Hirshabeelle, Galmudug iyo sidoo kale maamulka cusub ee hadda la rajeeyay ama la dhisay kaas oo wax saameyn ah ku lahayn markii hore arrimaha doorashooyinka, laakiin waqtigan diyaar u ah inuu ka qayb qaato. qodobka labaad wuxuu yahay in ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu magacaabayo madaxweynaha Soomaaliya oo booskiisa taagan, isla markaana xilka ay ka qaadi doonaan ama ay ka qaadi karaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. laakiin markii hore ujeedku wuxuu ahaa in madaxweynaha uu magacaabo, madaxweynahana uu ka qaadi karo, laakiin taas waa la diiday. qodobka saddexaad ee ugu weyn waa in muddo 5 sano ah wixii waqtiga ka dambeeya xilka uu sii haynayo madaxweyne kasta oo loo doorta jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Soomaaliya. laakiin dad badan waxay isweydiinayaan hadiiba dastuurkii la meelmariyay qayb ka mid ahna lagu sheegay in 5 sano madaxweynaha uu sii joogayo Xasan Sheekh Maxamuud ma sii joogi doonaa muddo 5 sano ah oo hal sano oo dheeraad ah oo cutub ka mid ah dastuurka uu sheegayo ma ku sii qaadan doonaa villa Soomaaliya. sida aad wada ogtihiin oo aan baahinay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Aadan Madoobe waxa uu si aan leexleexad lahayn gambad lahayn uu u sheegay dhawaan in hay'adaha kala duwan ee dawladda oo ay ku jiraan baarlamaanka ay sii joogi doonaan waqtiga dastuurka uu sheegayo, gaar ahaan dastuurkan la meelmariyay
taas oo cadeynaysa in hal sano oo dheeraad ah ay sii joogi doonaan ra'iisul wasaaraha guddoonka baarlamaanka ee labada gole iyo madaxweynaha Soomaaliya. xalayna waxaa Muqdisho lagu qabtay dibadbaxkii ugu weynaa oo looga naxsaday xubnaha mucaaradka kaas oo lagu soo dhaweeyay meel marinta dastuurka dalka kaas oo rasmi noqon doona. haddaba adiga ka ahaan sidee ayaad u aragtaa in Xasan uu ku dhiiraday meel marinta dastuurka waqti badan la geliyay oo ugu dambeyntii si toos ah loo meel mariyay madaxweynaha soo socdana uu ku imaan doono 5 sano oo villa Soomaaliya uu sii fadhin doono. hadda wixii aragtidaada ah noogu reeb qaybta hoose ee faalada. haddii warkeenu ku soo gaarayna sii share garay la garay oo la sii wadaag asxaabtaada wadada guusha adiga ayaa ka harsan boggeena fuli u soo dhex